shaqaalaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland oo horkacaya agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta soo dhaweyn la yaab leh u sameeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland oo qayb ka ahaa waftigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Itoobiya oo ku dhexmaray heshiiska Isfaan ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali. Wasiirka ayaa intii uu ku jiray safarkiisa shaqo waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ee dalka Itoobiya waxaana ka wada hadleen iskaashiga caalamiga ah ee dhinacyada qorsheynta iyo horumarinta ee u dhexeeya labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland. Munaasabaddan soo dhaweynta loo sameeyay wasiirka ayaa ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mustafa Cumar Faarax waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. Saaka waxaan ku soo dhaweynaa wasiirkeeni wasaaradda qorsheynta Ahmed sababta aynu halkan ugu soo dhaweynayna waxay tahay dhowrkii habeen u dambeeyay dhowrkii maalmood u dambeeyay waa ogeydeen in waftigu kamid ahaa waftigu madaxweynuhu watay guulaha qaranka u soo hooyay maadaama wasiirkeenu kamid ahaa qayb kamid ahaa waftiga guul soo hooyay inaynu inaguna tusno sida wasaarad ahaan idinkoo kala qayb galay dabaanshaadkii hore habeenadii hore socday kii madaxweynaha ugu soo dhaweeyay in maantana wasaaradda ugu soo dhaweyno wasiirkeeni wasiir waxaan ku leenahay ku soo dhawow dhammaan aad baan ugu baxda celinayaa wasaaradda shaqaalaheeda agaasimo waaxideeda sababta labadaas sababood baa ugu weynaa oo ahaa midna inaynu xusno sidaynu u qiimeynayno guushii qaranka u soo hayay waftiga hogaaminaya madaxweynuhu iyo talabaad oo ahayd maadaama wasiirku ka mid ahaa wasiiradii raacay madaxweynaha inuu isaguna gaar ugu arkay wasaaradda qorsheynta Itoobiya oo aad moodo xiriirkii inuu nahay wasaaraddii ugu horreysay engage garaysayba heshiisyadii ka mid ahaa heshiiskay gaadhay waftigeenu taana aad baanu ugu faraxnay runtii wax badanna waa la isweydaarsan doonaa wax kalena laga faa'iidi doonaa. intaasi kadibna wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Deeriye Toorno ayaa shaqaalaha uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen waxaana uu faahfaahin ka bixiyay heshiiskii Isfaan ee dhexmaray dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta deyn kastoo wasaaraddeennii ay tahay oo ay kaga dhigteen lama filaan oo marka albaabka ka soo galay aan yaabon si mala cid kale loogu talagalay soo dhaweyntan waxa bar si balan madaxweyne baa imanaya marka de runtii aad baan idinku mahadnaqayaa inuu weynu joognaa waftigii madaxweynahana waa tii si fiican loo soo dhaweeyay kushaana madaxweynaha soo hooyay inta waqtigiisa ay timi hawlahaana isku soo dubariday kaliya waxaan doonayaa inaan idhaahdo horta talaabo kasta aynu qaadno ilaahay mid khayr qabta ha inooga dhigo oo ina anfacdo ubadkeennana anfacda ujeeddadeennana waa tii hore loo sheegay ee madaxweynuhu sheegay in dhul aynu leenahay dee aan cidna la siinaynin laakiin adduunyadu ay dee wada macaamisho oo imikaba dekada berbera aynu heshiis kula jirno wadamo kale iyo shirkado wadamo kale saldhigyo wadan wuu siin karaa wadan kale berigii hore ruushkaa soomaaliyada hore ku lahaan jiray oo berbere iyo belidogle iyo meelo badan ku lahaa maaragtay markii dambe maraykankaa ku lahaa imika soomaaliya waxa jooga ciidamo 14 dal maaragtay ka soo kala jeeda oo ay saldhig siisay dowladda muqdisho ka dhisani marka dee kuwa maxaa loo odhan waayey dhul baa la bixiyey kana maynaa bixin dee saldhig baynu siina waxa weeye iska daa wax kale oo dowladda muqdisho ciidamada ilaaliya xitaa waa ajnabi waxaan arkayay wasiir hadlaya iyo maaragtay niman madaxa oo hadlaya oo muqdisho joogo oo dhaliilaya heshiiskan marka waa isfahan imika waa wax inoo soo kordhaya ninna ma bixinayo dal madaxweynuhuna waa ka caddeeyey dee qof walba dambiirkiisana wuu garanayaa inaanay dhulkiisa cidina bixinayn laakiin dee waan kula macaamilaya heshiis baan kula gelaya muddo intaasa aan saldhig ku yeesho maaragtay dekadaada aan kula isticmaalo leedhka aanu idinla isticmaalna idinkuna annagana leedhka na aqoonsada annaguna aqoonsi baan u baahanay dee waxbaa la isweydaarsanaya marka waxaa loo wada fahmo dadku waxay arkayeen madaxdii muqdisho ka hadlaysay mid waliba intuu hadlo oo ereyo shucuurta uu dadka ku soo jeedinayo oo ayuunbuu ku soo dambaysiinaya uun annagaa dowladdii la aqoonsanaa ahe
aanu saxeexno marka dooduba waxay ahayd uun annagu aanu saxeexno de way og yihiin inaan cidina dhul bixinayn aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iskaashigana cid walba waxay noo taraysa innaguna aynu waxu taraynana waynu la gelinaa heshiis aan waxyeello inagu hayno wax tarayno ah aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta dee aanan filaynine sarbarayska iyo kadisada igaga dhigteen assalaamu calaykum